بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa Ismaaciil Muuse halka diga daawanaysa ama digala socotaana waa degalkeeni aynu ku lahayn mareegta YouTube ee Ismaaciil Said fadlan dadku cusub tahay channelka ku soo dhawow subscribe na dheh gambaleelkana duuli videogana like saar waxaan maanta jeclaystay inaan ka yara hadlo arrin halis nolosheena ku ah khaasatan ayaamaha Ramadaan ee nagu soo socda Ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad qabtaama videonkii ka horreeyay kule waxaan kaga hadlay muuqaalkii ka horreeyay in Ramadaan aynu ka faa'iideysano iyo qof waliba soo ka faa'iideysanayo kana waxaan jeclaystay inaan kaga hadlo arrin yar oo halis nafteena ku ah khaasatan ayaamaha Ramadaanta isay wada ogsoonahay khaasatan dhalinyarta waxaynu u diyaar garownaa ciyaaraha kala duwan noocyadooda kubadda tahay daawasho hadday tahay filim la daawanayo wax la ciyaarayo hadday tahay sida laadhuuda iyo turubka iyo wixii lamid ah waxyaabahaas aynu markay Ramadaan soo yeelato inaguna u yeelanaa oo aynu soo dhiganaa guryaheena iyo goobaheena aynu ku noolahay khaasatan waxaan si gaar u abaarayaa maanta ciyaarta la yiraahdo laadhuuda nabigeenu waxa uu noo sheegay inuu cadeeyay sallallahu calayhi wasallam in qofka ciyaara laadhuuda inuu ka mid yahay inuu la mid yahay qof doofaar dhiiggiisa iyo hilibkiisa iyo uuskiisa fadhaya oo qalaya oo kala dhigdhigaya nijaasta aanu garanayno culimaduna dhammaantood waxay isku raaceen ay ku ijmaacsan yihiin in ay maxay tahay xaaraam yahay oo xaaraan cad oo maqtaca ay tahay in la ciyaaro laadhuuda nabigu wuxuu leeyahay man laciba binardashiir nardashiirku markaa waa laadhuuda فكأنما غبس يده في لحم خنزير ودمه wuxuu la mid yahay qof xuluuliyay oo geliyay oo ku walaaqaya gacantiisii hilibka iyo dhiigga doofaarka halkaynu ga taagayna waan garanaynaa hilibka doofaarku iyo xaaraannimadiisa culimaduna waxay ku ijmaaceen isku raaceen dhammaantoodba inuu xaaraan cad oo maqdaca yahay in la ciyaaro laadhuuda laadhuudu way uga halis badan tahay dhammaan inta kale soo hoosgelaysa turubka hadday tahay laadhuuda shaxda maxay waxyaaba dubnada wixii kale oo dhan way wada hoos imanayaan laakiin maanta aniga ujeedkayga hadafkayga wuxuu ahaa arrinka khatarta weyn inugu haya ee ah inay dhammaanteenba waalidkeena iyo weladkeena wiil iyo gabadh ba aynu ka digtoonaano waalidku si gaara ay ubadkooda yar uga digtoonaadaan waynu wada ognahay oo dhammaan way iska soo qaadanaa markaasoo kale waxaad moodaaba wax ka mid ah sunnihii noloshii ramadaanta looga faa'iideysan lahaa inay tana ka mid tahay bay noqotay nolosheena waqtigeena yar ee kooban aynu ka faa'iideysano qof waliba waxa uu leeyahay hadaf noloshiisa ilaahay wuxuu ka doonaya ayaa jira ayaamaha yar waxa ilaahay aynu ka doonayno ka rajaynayno aynu uga faa'iideysano ayaynaan nolosheena uga faa'iideysanin inaynu laadhu iyo wax lamida ku ciyaarno laadhudaana aynu ka digtoonaano xukunkeedu waa xaaraam waxaana weeyaan qofka qalanaya ee fadhanaya doofaarka nijaasta ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu